magaalo xeebeed aad iyo aad u qurux badan waxaa loo soconayaa 135 kiiloomitir. muddadii ugu dambeysay waxaan u safray meelo kala duwan. halkan waxay iga dhigan tahay meel ka duwan meelaha kale. نسي buuraha iyo dhulka cagaaran waa waxay indhahaygu qabanayeen muddadii iyo waqtigii aan ku guda jirnay safarkayaga. cadceedda iyo buuraha iyo dhulkoo green ah. intaa waxaa sii dheer intaan jidka ku jirnay waxaanu sii marnay dooxyo biyuhu ay qulqulayaan. waxaa ka mid ah dooxa loo yaqaano dacar budhuq. كان ساعات وحويان شنتي كلمة بعسوس عني 6 ساعات كان ويا عبد الغني شكليه سلامنا صاحب 6 ساعات بعسوس عني 6 ساعات مرة صح لو صباح عليكم عشان وين سلامنا وحنقول سلامنا ميل دقو بيننا يكرس جيت كذا نسيت حلو يا باشا روح الله سوريا ده سوريا ده حبتك يا هذا مرة ماشي هو ضح 6 كيلومتر بنهاري إلا جيني 6 كيلومتر بنهاري واروح على وجه عاو قلنا عاو واروح على وجه ما لاي 6 كيلومتر ولا ما وكيف كيلومتر ركابكو مثل ما يلبسوا سعداء مثل ما يلبسوا تجيا أنا أقول لك سعداء حاجة تجيسا ذو حاجة تجيسا بضع قاعد مركز كدكتو انتين لك بحافظ أول وين ساعة ساعات بط هبين من قرص لكنه توش كابس كده بس توش وسط توش ماشي عباس اللي ده عباس كده على يا واو سو ده وادر معايا انا والله مقالة حاجة تيسا قرقار كم لا يقرأ قرقار مربع خوي منا قرقار إن شاء الله ودقنا أنا أقول لك قرقار يا زلمة أنا ما وقبلنا كذا خوش توشكا عباس لا تسكيل علينا توشكا عباس لا تسكيل ما بس ما في هذه waxaan saxannaa meel faran saxannaa guri baan jigad xagga sare ka saxannaa بعيد نسبة شاهين ama nisbaan moos ma samaysanaa marka gaadhiga waxaa jirta dadka qaar waxay koraan xagga sare sidoo kale xagga sare qiimo jaban baa lagu raacaa sidoo kale xagga shirka oo gudaha ah oo darawalka agtiisa ah lacag lagu koraa lagu koraa lacag ka qaadaysan xagga sare waxa weeyaan iska bilaash yaraas naasiga weeyaan xagga hoosena lacag baa la iska qaadaya kala sababtu maaha halkan boorka iyo dabaysha cadceedda dhaxanta kulaylka intaasoo dhan la isku daray ayaa dushka kaga dhacaya sidoo kale halkan waa qaybtii raashinka la saarayay raashinka xagga hoose macal adhiga hadhow lagu soo gurayaa marka soo soconnaa adhiga soo
aniga soo xaraasina doona la insha Allah adiga soo noqon doona waxaan idin rajaynaynaa muxuu ahaayay inaad safarka nala socotaan muuqaalka nala daawataan asxaabtii noo sheekeysaan jawiga qurux badan nala wadaagtaan waa sidaa uu sheegay Axmede caadiina waa taag si dhacaysa buuraa dhexdooda dhinacana waa banka iyo quruxda goobtan aan soo gaarnay waxaa la yidhaahaa ceel caanood marka ceel biyaa ku yaala saasaa lagu magac daray sidoo kale tuulooyin badan ayaanu sii marnay halkan oo la yidhaaho gargaarka waa halkii ninkii sheekh ahaa ku degayey sidoo kale waxaan sii marnay oon ka leexanay tuulada loo yaqaano dacar buruq magaalada loo yaqaano dacar buruq ee laamiga berbera haysata halkani waa meesha looga leexdo geeri ama meesha aan ku soconno safarkaygu yahay oo meel aad iyo aad qurux badan ah oo beach qurux badan leh maasha allah gaadhigu wuxuu ka talaabayaa dooxan waqooyi baan u soconnaa magaalo xeebeed aad iyo aad qurux badan dooxii dacar buruq baan ka talaabi doonaa weliba dhanka waqooyi baan ka xignaa magaaladii dacar buruq maasha allah dooxa meel kasta ay biyo fadhiyaan dhulku saas iskugu siman yahay maasha allah asxaabta halkan baan ku weysaysan doonaa halkan baan biyo ka qodan doonaa marka halkan baan ku weysaysanaya insha allah halkan baan weysadeeda insha allah ku dhamaysan doonaa marka biyahaasaan qotay dadka halkan degani boqolaal sano ayay xoolo dhaqato ahaayeen iyagoo ka faa'iidaysanaya xoolaha ay dhaqanayaan ee geela iyo adhiga siyaabo kala duwan u isticmaalaya sii iibinaya oo wax ku iibsanaya sidoo kale halkan waxaa ka muuqata deeradii ordaysa inkastoo ay naga fog tahay iyo cawshii iyo xayawaano duurjooga oo badan oo fara badan oo kala noocnooca sida sakaarada deerada cawsha ayaa bartan ku nool intii aanu jidka ku sii jirnay waxaan aragnay qaar ka mid ah inkastay naga fogaayeen oon moobilka ku soo dhoweeyey halkaasay daaqayaan reeraha agtooday daaqayaan sidoo kale geel iyo adhi baa halkaa daaqaya maasha allah waa meel aad iyo aad u qurux badan dhulkeena ilaahay wuxuu dhigay nimco badan qofkii doonaya inuu xoolo dhaqdo si fudud buu dhaqan karaa kii doonaya inuu ka faa'iidaysto siyaabo kala beero markaa garanugti weyn cawshi weyn taasi geelay ag daaqaysa maasha allah wama axlaa asxaabta waxaan ku sii jeednaa uu safarkaygu yahay meel loo yaqaano geeri waa meel xeebta ku taala waqooyiga waa meel aad iyo aad u qurux badan muuqaalkan waxaan ku soo koobay intii aan sii soconnay jidka iyo waxyaabahaanu sii aragnay insha allah muuqaalka geeri xeebta iyo biijka quruxda muuqaalka dambe ayaad nagala daawan doontaa assalaamu calaykum